safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Masar ahna wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya u fadhiya jaamacadda Carabta Ustaad Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo si aada ugu mahadceliyay uguna hambalyeeyay ardaydii qalin jabinaysay isagoo xusay in dareenka farxadeed uu la qaybsanayo ardayda wiilashanada iyo gabdhahanaga متعلمين تاهي كالتخرجي أرقى الجامعات في العالم العربي وهي جامعات مصر هي انت السوشيال لفتي كلا سود ويسي حفلتها ما هدوين بانو علمية والد سيدو ولد كيس في عن وفرحانة وفرحية وانا فرح سنة أتعسيه عائلة ذي صوماليات دلني يرضي قالك هيدا إذنكو كراهي maalintii bisha October 3 ay dad mujrimiin ah oo diinta islaamka ka fog kuna andacoonaya nasiib ay ku laayeen magaalada Muqdisho iyagoo ashraf risaala meesha u jooga inay imtixaanaad lagaga qaado oo ay aadaan dawladda Turkiga sidiina oo kala dalka wax ugu soo bartaan sidoo kale Cabdifataax Umar Cabdallah oo ku hadlayay magaca ardaydan qaran jabinaysa ayaa xafladaasi ka hadlay isagoo ku khudbadeeyay luqadda Carabiga maadaama dalka ay wax ku barteen looga hadlo luqadda Carabiga isla markaasina ay wax ku soo barteen في هذه الليلة العظيمة وفي حفل تخرجنا لهذا العام عام 2011 وبعد أن قضينا أعواما دراسية حافلة بين ردهات الأصرح التعليمية الشامخة في جامعات مصر العريقة وفي مقدمتها جامعة الأزهر الشريف منارة الإسلام وقلعة المسلمين ينير العالم بفيض نوره المشع الساطع على أرجاء المعمورة وأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي xafladani qalin jabinta ayaa sidoo kale naadiga ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar waxa ay ku soo bandhigeen wax qabadkoodii muddada sanadka ah ee ay soo shaqeynayeen iyagoo halkaasi ku soo bandhigay muuqaal video ah oo ka turjumaya wax qabadkoodii ku aadana muddadii sanadka ah ee ay soo shaqeeyeen ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardaydii qalin jabinaysay oo aan mikrofoonka la dhax qaadnay ayaa muujiyay dareenkooda farxadeed ee ku aadan guusha ay gaareen magacayga waxa la yiraahdaa Fuusiyo Umar Ahmed aad iyo aad ayaan u faraxsanahay anigoo caawa qalin jabinaya waxaan halkan ka salaamay hooyada Isniin Maxamed Yuusuf aabahay Umar Salaad Ahmed adeeraday abtiyaashay familygayga dhan asxaabtayda ila qalin jabisay saaxiibayaashii inta ila jooga oo dhan khaasatan Cabdiqaadir Haybe Maxamuud Ciise عنب مرة مريم أحمد صلاة منو عبد الكوبا عيان عثمان حاج مرة كل أصحابي إذا أنت يقولون ميودن آد بقول مهد علنا يا عادي يا عاو فرحتنا هاي إن يعني جارو وح أنت مني جري إلا مكان يرى عاد يا نقول فرحتنا أنا ما قاعد أتسامح عاد برا أو هذا نقول فرحتنا هاي وعلمتها ما أنت أنا شوكلة ما دام أن دراستي أنصوري أفر صنع أنصور ما يصير marka aad ugu faraxsan xataa xagan waxaan uga ambaleeyay labadu weerar u dhashay hooyaday Xawa Maxamed Faarax aabay Maxamed Barre iyo walaalay dhamaantood meel kasta caalamka joogan oo ma santay magacayga waxa weeyaan Naciima Maxamuud Maxamed magacayga Naciima Maxamuud Maxamed oo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo maalin aad u weyn oo kulligan ku faraxsanahay aniga magacayga waxa la dhahaa Maxamed Yuusuf wallahi dareenku aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay sidoo kale waxa mahadsan ardayda soo abaabishay waxaana meesha ka saareen maantay anigoo aad u faraxsan waxaan meesha ka saareen inaan tacsi u diro walaalahaygii saan kala rabay inay jaamacadda u gabagabeeyaan si dalkoodii ugu soo khidmeeyaan waxaan walaalahay maan ilaa dadkiina tacsi baan u dirayaa insha Allah Soomaalida oo dhan isku soo wada duubo ardayda sanadkan ka qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee dalkani Masar ayaa ah arday tira ahaan kor u dhaafaya 60 balse inta xafladan shahaadooyinka lagu guddoonsiiyay ayaa ahaa 45 arday oo ka qalin jabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha ku yaala dalkani Masar waxaana halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyay Danjire Cabdullaahi Xasan Maxamuud iyadoo sidoo kalena halkaasi shahaadooyin sharafeed safaaradda Soomaalida ee dalkani Masar ay ku guddoonsiisay maamulka naadiga ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan oo ahaa kuwii isku soo dabariday xafladan